عربيه طبعا كويت كوين حتى ما لقيت واحد ويت اللي صدر دي بو سنه ما اي كان وقت بقى كدحيا صلاه ما lagu leeyahay diin buu sii fogay oo sii weynanaya marka arday yarar oo kale shan jir dhixtir wadii karnaa wait اللي soo dhacay arday la gasho dhaho dib baan ka qaadan doonaa intaan qorno hadhow noo keena laakiin kuwa weynka way hor laga qabro hor laga qaabilo hor aad xigta laga baro dhibaatada dhacda kamid ah cunug weyn oo 15 sano jir alif baa la baraya mana dukado macalinka noocaas muxuu si macalinku yahay ana la idin keenay soo dhaay quraan samaan gaaray macalinku leeyahay waa jooga badku tamaya fatama ma qala taxad ma yaqaan معلمku waa inuu ardada markay ay madaxa soo qaadaanba waa taxadka fatxada baro salaada baro taasa waxba ugu horeysa ilmaha dukada kuwa ka akhlaaq fiican yihiin ilmaha dukada kuwa ka caafimaad fiican yihiin fatxada ma yaqaanay kuwa fatxada ila daawa ilmaha arday ku daawa ila daawa arday ku daawa inta marka arday noocaas inta ku soo laabto arday noocaas macalinku arday uu ku daraya meel gaaro fadhiisinaya wuxuuna siin doonaa hadii ay ku rayahay wardiye iyo iljoogteen gaara وبلا توفيق يا كحية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام وهذا ما عيبته هم الله ينعم وسلامان ويا برعة ودوشة هي شوف سلام سودو هي بارك الله فيك ورتا نسبة عبقرية أرتجن عبقرية وين ويريا مركين هرب بليد كاين وجبة مو واحد هاي لا إله إلا الله ما يعرف بليد ما قبلنا هي قصة هي waxaa inugu badan mushaaqibka oo marka ay u raacdo waliba sucubatul xifdi oo ay u raacdo waliba katarku nisyaan oo ay waliba u raacdo waalidkiisuna inuu la hanwen yahay oo uu rababa inuu hogaamiye noqdo oo wax walba binafsi kaga soo baxo oo ka u sareeyaba noqdo marka ka ugu dhibaatada badan leh hela waa ka waxa ka waxala isagu waxa ku yiri waa mushaaqib وصعوبة الحفظ كعبانيا كثرة النسيان بكعبانيا مع ذلك والدكينا ووالد هذه يشير ورور يوم كبح يالكم مريا يجسبي مريا يالكم وحبوك هذا يا كأنما يعني الكوكب كله كله اللي هيبان والمهم بانوا قوم بولهاي محاول حالك بارك الله فيك horta waalidka waa dhahnaa mararka qaarkood waa badan tahay waalidka ilmihiisu waa la fiican yahay ilmihiisu waalidka ilmihiisu waa la fiican yahay وانا كو امانين وارد الميس انه لا فيعن yahay oo ilmihiisa dar yeelanayo oo la dadaalay maxay yeelay haduu asaga ka dhaadhacin maan baliid yahay oo doqon yahay meesha ma keeneenba ilmaha oo dayacmi ahaa marba ku amaanan yihiin waa in lagu amaano laakiin anoo shaqadana qabsanayna kama calin ahaan shaqada noo taala baan qabsanayna taasoo ah ilmaha noocaas hal dawa loo haya taasoo wax la tikraar ku celis 10 dumaanta ka baxo 10 jeer lagu cesho 20 jeer lagu cesho bari أرضاً نوع سبعين إنه وحلو علش صعوبة الحفظ دي صعوبة وحفظ كريم وحين مصبرين كريم وحياة مشاغب النماذجنا وشيء جرى مرة كانوا إسراعان وإنما إن ده هي أوتيزمكو أنت ترمي كلام صدان أنت ترمي كلام صدان لكن دور شيء وإن لا تحقق الشيء أيضاً لو ترجع يو عدرس إن الله يريو بخاص مدى ويها يكون علوسيين ما دام لو ينوه المام دونا ولو علنيا أدو حتى خبحه درس ما أنت خبحي بريمة يقانو ولو يه ما همركم متك أصبع خبحيه السحرية ولو السحر ما هو ولو علنيا عندنا ولا صحية وأنا دار بضاعنا ولا صمينا يا وارد كان وحنا هاي وفي هاي ودلاليا ودمريا هذا إذا مرة كانوا يردوا راشين هذول أرض وانين في عن وأخلاق في عن وحاجة لكن حاجة حفظي ساعة مرة كانوا والله وين هذا راشين لكن هذا أمام بضنا هويرنا وفعلا زيرك سوق هذا منه أرض مشاغبين تاع الرغم هو شيء الله ما يعرف على هاي درس ياجا وين خصوصا بحضر مكو الرئيسة وأرض خصوصا الرئيسة درس ما خم بحضر أرضا وإنترس وترنا يصير خلاص ما بقى ترنا في سوريا ذو قال بس عليه لكن وينه بالشرع عشان خبحه فيقال مقارن دونا أرضا هذا هو فان دونا ولا أنا وراء إنترشة مثل حلا دي على الكورة هاي أرض جد عي يكيب عصير وهاي الماء هاي يكرهه أنت يفريسه هذا واحد هو تاني عشان أوصل ما يسا لكن محاكو حمر محاكو حيران هي مركب وكعيا سو درس ودي يرسو أو هم بحب الري أرضا وفانو ما راح نعرض مركا درسك الساعة ترني ويانا وعيهري كلام إلى 8 شغل
baa ka bannaan iyo ka badanba hataa qaar baa ku-xigeen iyo madax kale hataa iyo ku-xigeenkiisa lacaga iyo gunno yar oo bishiyana waa la siinaya hooyo abaa laga qaadaya adu bixi maysa waarda ka qaadayna ardaysa madrasada la jeclaysiinaya la soo jiidaya ardaydii baxsatay oo madrasooyinka nacay waan soo celinay lacag yar iyo waxa loo bilaabay jago iyo quraankan uu ka baxaya macalinkuna wuxuu leeyahay adigu jaan kuma gaar baa loo shiraya adigu waa ku magacaabay nin fiican baa tahay maasha Allah lagu bagay bishina $5 baan ku tuuri doonaa helaysaa insha Allah taala laakiin jagaasa qabanaysa laakiin maxaa ku xiran inaad adu number 1 noqotid marka mushaqaybinta shaqadaas loo dhiibaa madrasadana waxa la dhacday 40 joogto waxa dhibka badan waa 5 ama waa 10 kama badna kuwaasna jagooyin iyo dhacay nacnaa la siiyaa wabillahi tawfiiq yaa ku xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay ma joogto عبد الفتاح إبراهيم waxaan joogaa magaalada Muqdisho aad baan inii salaamayaa sheekh hal su'aal baan qabaa inaan ku weydiiyo insha Allah su'aasheedu waxay tahay waxaa jira deegaan macallimiinteedu intay ballameen oo dhaheen ilma dugsiga kan haddii lasoo naco ilmihii lasoo tumo lasoo saaro adiga ha qabanin anigana qaban maayo adigana qaban maayo dugsiyaasha wixii laga soo saaro qaban mayno marka dugsiga macallin Axmed haddii laga soo saaro macallin Maxamed ma qabanayo kiis ka soo buri yaad ka soo bixisay hebel baan ka soo bixiyay iga qaad marka ma qabanayo marka deegaan dhan baan arrinka ku arkay arrinkaasi ma sax baa mise waa arrin khalad waana sax waana khalad hadday leeyihiin idaaro macallimiintaas oo ay ardaygii lasoo burshay ama lasoo ceyriyey ama lasoo fiijiyey ama si qofsi u yaqaano ay leeyihiin meel u laabto oo laga jeegareeyo macallinka soo ceyriyey ama soo buriyey ama soo fiijiyey ma saxnaan ma khaldaan meel laga fiiriyo hadday leeyihiin oo intay guddi u saareen guddaas qiimeeyo ay ogaadaan arday inuu khaldan yahay dugsiga kulaaba ay dhihi karaan hadduusan khaldanayn oo macallinku khaldanaa ay dugsiga kala geyn karaan way ku fiican yihiin laakiin hadday tahay ganacsi iyo in anaga meesha noo xirnaato oo qof la meesha xirto waa taas dulmi weeyaan laakiin hadday samayn karaan waxay ahayd si arda anu waa arnay daan lala guurguuray wax fiican ma hooyo kana geenaysa wax fiican ma laakiin madaarisa noocaas waxay inay ku heshiiyaan guddi mucallimiin oo cadaalada inay dhahaan ardaygii la soo saaray ama la soo ceyriyay ama waalid soo baxeen guddigaas u geeya ha fiirshaano gartii ha galaan macallin faarax arday uu soo garaacay ama soo dilay hadduu khalad ka sameeyo si xun u dilay ama ku xadgudbay loo celimaye macallin jaaca loo geenaya ama axmed loo geenaya khalaas haddii laakiin hooyo ay ardaygan kala soo baxsatay dugsigaas biduuni sabab la'aan ama xataa mararka qaar waxaa dhacda waalidka dugsiga lacag ku yeelanaya mid cusub bay geenayaan lacagta naga soo cararaya annaga arag naga taagalnay ada marka waa in la helaa meel maxkamad loo laabto laakiin macnaheedu ayaa danaysteen kaligood oo arday inay kala haystaan rabaan taasna sax ma marka dulmiyaan la samaynin ha sameeyaano way fiican yihiin nimanka noocaas gaar waxay heli karaan xataa inay gaaraan wax la dhaho cudla iyo shahriyan iyo mid sanawiyan oo arday fasax siiyaan oo imtixaan qabsada waxba ma gaari karaan ma fiican babe laakiin ha sameeyaan macallimiintooda qaar ka mid ah cadaalada inay 5 qof 6 qof ay doortaan oo 7 qof ay doortaan oo guddi ah oo ardayga 5 daqiiqo ku qaadanaysa ay dhageystaan oo ay hadhowti go'aan ka gaaraan aad ma santii ayaa ku xiga hal su'aal baan qaadanaynaa insha Allah ama laba su'aal هي كلنا مياه نو يا كل حاجة هذا واحد سؤال يجري إن شاء الله تعالى waxaa jira hal baan ku laabanayaa gabadh bay iga sheekaysay oo wadamadan ilmaha ka keensatay wadamadan ilmaha gaaladu uma ogolo way ilmaha hadday ul iyo ku arkaan waa xarig marka wadankii ilmucallimiinta ka sheekeynaya ilmihii macallimiintu ay ku safan yihiin oo intaasoo macallin jooga ayaana online ugu dhigaa ma garatay haye intaasna ul kala carar waaye ilmihii waan geeyey marka dugsigu ku soo tumay dugsigu intuu ka soo carareen buu soo bursaday xaafadu noogula yimid bay dhaheen macallin bursaday haye abnin mujrim haye asqadar waqtare haye way dhacdaa marka waan kala baxay sababtaasay ahayd oo waan kala baxay oo waxaan geeyey macallimiintii kale u geynayaa bay tidhi marka macallimiintii oo dhan yaa kala soo baxday macallin hebel ilmihii waa laga soo dilay ul diluma ogoliye maartay ha laga qaabilo waan waayay iyadoo le baan maartay ilaa hadda ilmihii
midna wuu u dhameeyey labana waan u wadaa ma garat online ma urita online baan ugu dhigaa waana bartay degan tahay marka arrinkaas anigu in badan macallimiinta waxaan dhihi lahaa ilmaha dilkooda horta in ilmaha waa la dilaayo dugsiyaasha inta badan ilmaha waa la tumaa laakiin ushaas garaaciddaas oo xaddaafka oo maarata ma garanaysaa ilmaha dee lagu xadgudbayo inta badan anigoo kolley macallimiinta waan kala talin lahaa marka sida looga galo ilmaha waalidiinta hadda waalidiintoo kale arrinkaas waa anigu in badan waa waalidiintoo kale waa 2 isbuuc markii la joogo isbuuca kale waa inaan arbacada kulannaa oo na ka wada hadalnaa ilmahoo kale laga dhaadhiciya waalidka horta ilmaha in la tumin waalid baraaranayo ordiyo ilmihii la ii tumin waaye macallinka waa miskiin oo ilmihii waa ka wadanayaayo ordi wuu kuu imanaya horta wuuna soo maray marka waxaa la rabaa marka waalidka kulankooda waxyaabo badan oo anigu aan ku arkay baa jira macallimiintana waa ku boorinaya inay waalidka kulmiyaan horta wax ka dhaadhiciyaan waalidkii wax ka dhaadhicin u baahan iyaga in wax la baro oo wax la fahansiiyo marka taasaan insha allah ku darsanaya tala ahaan marka aad baad umahadsanti jazaaka allahu khayran waalidiinta in la baraarujiyo oo lala bal annagu muslimiin baan nahay oo qur-aan baa dhignaaye gaalada ayaga waxa loo yaqaana parent evening galabtii waalidka bishii hal mar ba waalidku iska leeyihiin baba waa loo yeerayaa ardayga looga shakeynayaa waxa u habboon baa loo sheegayaa waxaan ku habboonayn baa loo sheegayaa maantana waa lagu celinayaa waalidku iyo macallinku inay xiriir leeyihiin macallinka iyo waalidku inay si wada joogtaan ilmaha waxooda baraan waa 2 macallin weliba waalidkaas sii macallimsan oo tarbiyada iyo dhaqaalihi iyo gurigii iyo faraha ku haya marka waa inay isla joogteeyaan ta kaleeto waxaa marba la weydiiyaa macallimiintaad ku dhegantihiin oo wax ka sheegtaan oo wax u sheegtaan oo ku celisaan waalidka ma gaartaan waxaan ku idhahdaa waalidkaana ma gaareen macallimiinta gaartaan macallimiinta ardaydu haya annagu kuwa u sheegaynay adigu usii sheega marka cidda la rabo inay macallin waalidka ay tawciya siiyaan oo tala siiyaan oo fahansiiyaan oo soo dhaweeyaan oo dilka ay ka gooyaan waa macallimiinta macallin xaafada macallin ku xiran ma jirto haddii marka macallimka saale uu shaqadiisa qabsan lahaa oo ilmahan cunfiga ka dhawaarta dhihi lahaa ilma fiican baa noo soo bixi lahaa hal nebi baa intaasoo ummada bedelay annagoo kumanaan baan haysanaa mucallimiin oo shaqadii nebiyaasha haya maxay wax bedel leeyihiin uma soo jeedaan marka allah idin barakeeyo hala dadaalo wabilaa tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع سنتي دوام معلمين كلهم كتاس النقود دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.